أبصموا يقول هاي أبصموا يقول هاي مقرتين يلا يقول هايان anything happen وأتفهم كرتين we love you dalkan aan ugu nimi iyo dalalka kale loogu yimiba horta mahmaha Soomaalida waxaan ugu jecelahay mahmaha xamariga amoorta mukulaan minankeeda joogto miciye libaaxay leedahay xalito naag cadaan ah oo gabadh yaro Soomaaliyeed dishay baa aan soo dhigay Facebook-gayga anoo ka hadlayo iska dhaaf cadaankii Facebook-gaygu habsaday Facebook-gaygii warningkaas waxa galiyay gabadha cadaanka ah ee ka soo hadlay oo soo caayay oo deecaydaas ay igu haystaan laakiin dadka cad waxaan isiraahdaa dadka Soomaalida waxay u baahan yihiin mental stability in lagu hayo waxaan arkay page baa la soo dhigay pageska ugu waaweyn Facebook baa la soo dhigay gabadhaas oo laga hadlayay commentiga gabdho Soomaaliyeed gabdhaha magac gabdhood baa u qoran dadkan baa qoslayo gabadh Soomaali ah oo walaasha ah oo naag cadaan intay xarun cadaan la tagtay ay si arxan darro ah hate crime ku jiro u dishay sababta loogu qoslayo maxay noqon kartaa sidee u qosli kartaa waxa kaaga dar hadaladay soo qorayaan qaarkood oo ay ka mid yihiin sida hadalkan oo kale naagi ha ku disho waa mucjiso naagi kuma dili karto miya yaa yiri naagi wax ma dili karto inan yar oo 22 sano jirto caata ah oo naagta intay iska celisay dhulka la dhacday oo markii dambe bir la geliyo muuji qoslo tira badanna way soo daadiyeen I don't see reason ka loo qosliyo inan yar oo Soomaaliya horta aan idin sheego hodan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo naxariistii jannaha la ka waraabiyo inan yar oo qaali ah oo Soomaaliyeed oo wax baratay oo qoys wanaagsan ka soo jeeday ahayd qadar ilaahay baana ku dhacday halkaas baanay adduunka intaas bayna adduunyada ku lahayd family qiimo leh oo caan ay ka soo jeeday oo hodan Cabdiraxmaan Dheere habro wadaagteed ruma oo ay abrirteed dhashay bay ahayd magacan hodan habro wadaagteed baa loogu magac daray xaqi baa yimid inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahay naxariistii janno horta ka waraabiyo inta marka lagu daro talabaad fiidiyaha waan fiirsaday anu naagta intay garaacday naagtu way ka weyn tahay waanay ka xoog weyn tahay intay garaacday oy tuntay bay iska dhicisay waxay ku dishay timekii oo dhamaaday adduunyada ay ka dhamaatay qadarteedii halkaas ay ku ekayd laba iyo qururada ay jabsatay ay meel xun ka gelisay 11 jeer bay ku taagtay iyadoo oo naftu ka baxayso intay kacday ay istaagtay bay iyadoo qoslaysa cajalada markay dhamaanayso I don't know inaad fiirsateen ay saa u soo dhaqaaqday dhaaftay ay naftu ka baxday naxariistii janna Allah ka waraabiyo horta waxaad ku qososhiinay meesha ma yaalo way shahiiday way isdifaacday way dagaalantay intii tabarteeda ahayd way samaysay laakiin kun cadaana dhexdood ayay ku dhimatay iyadoo oo tustay her last breath inay ku baxday fight back waxaan social media la yiraahdo waa hawl meeran ba ilaa waa meesi caadiyaba waa meesi dhan oo ku sugayba أنا هرت وحوك ما أقانو no هرت number 1 in YouTube ban moodayay inaad haddaad hees YouTube ku jirto YouTube kala gashato copyright I didn't know ina Facebook uu ku jiro so asa ba arosi meelaha lagaga dandaansiyo ilaan copyright ku xiran yahay baan soo dhigayo heesiba marka hore ba maaragtay warning baa la igu siiyay warning ka ana og baa hadana waxa la yiis ban xalay naag ay kula dul dhacay nacala dhalay naagti baan si xun u caayo afkoodii baan ku caayay fahmayeen Facebook-gayga dhac hawada loo diray gaaray jabaadii u dambeysay baan ku jiraa last warning haduu socdo dawaynu salaamadin awal baanu Facebook reer Facebook ma laakiin sadaqada yaree maalmahan qof sadaqad u guray ma garnaa ani wali idil raba horta ani hadaan dhinto ninkii ilmaha iga dhalo i furay inuu idile ogaada ani ma nooli ani wali idil raba ani meel istaagan laaya ninki shalay i furay
anigoo wax la-aan iyo dhibaato adduun ugu samraaye maanta markuu wax ilaahay siiy inuu naag kala guursaday uu ani caruurtii igu dayacay uu habeen iyo maalinna igu hayo caruurtaadan kaa qaadani xaaskeyga ungeysan horta naagtan masiibada ilaahay indhaha ha ka soo ridee aan nolosheedii shalay baabi'ise maantana caruurteeda anigoo nool rabtay inay haysato walaalay ma idhaaftido waxba ma ku yeelin ma ku garanayay ilmaha anaa dhalee shaqaalaha ka dhigan cunug kasta hooyadiis wax u dhaama ma lehe ilmahayga ii dhaaf walaalay idhaaf ma ku aqaani idhaaf ma fahante ninkan xuno oo inta igu soo dirtid ani na walaalihiisa habeen imaan ii raadinayaan wajigaasad lagaaga shubay waa lagu dilay caruurta xoogaa lagaaga qaadan maxaa iga rabtiin baahideeda haddaan la ooye freedom aan haystaa waan hadli karaa adig wax waa ii diiday wax ma kugu siinaa ilmahan sama wax ma kugu siinaay ma kugu biilaay ay dhahday baahi ma u dhidhimanaa maan iska aamusnaadaa habeenii maalin guriga 24 hours baahi ma ugu xirnaadaa baahideeda waan sheegtahay afkeygaanan ku hadle magacaada ma sheegin sabirkaada ma soo dhigin walaalow dulunka shal aa igu wadaa ilaa hadda igu wadaa iga dabahar ha idilini idhaaf aniga dadaa idhale dhiig dad leeyaha igu jira walaashaa ma ihi shalay calafaa isku kaankeena calafkayna maanta wuu dhammaaday inay dhaqaalaysato caruurta igu dhaqaalayso nolosha dad isfuro oo walaale inaan ahaano waa diiday 4 sano wanaag kula daba socday wanaagi wanaagaygi dhan xumaana igu bedelaysa ma faham walaalow dumaraan waan dul qaadani waa shalay anoo ku jecel oo uur oo liito ilmo yar gacmaha igu jiraan ku ooynaya ifurtana kala iga raacda ma fahamtay shalay baahi iyo dhibaato iyo adduun nolosha ugu liidataan kugu qaata maanta waa kibirte aniga ima taqaanid caruurteyda ma taqaanid walaalo ha idilina idhaaf dadkana igu soo diraysid idhaaf Kenya ayaan joogaa sharciyaa jira wuun ku dacweyni karaa wax kastaan kugu samayn karaa laakiin bini aadan dulunkiisa diyaar muu ihiye idhaaf walaalo idhaaf naagtan masiibada ay igu dawadid leeda caruurtaada ungeyn ayada may dhalin ilmaha ee dhasha ha haysato kuwan ana dhale ha iiga geenin ana dib ku dhale ana rafaad ku dhale ana 9 bilood ku dhale aniga waxaan rabo u qabsana idhaaf naagtan Soomaal shaqaale ka dhigan ilmeyga aniga u diiday haddaan u diido ma igu dili marka ma ii haynayso ana haysana muslimka ilaahay waxay siyaana ugu shaqaysana aniga haysana caruurteedu waan jecelahay idhaaf waan ka xadayna haydiin